Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mar kale kusoo dhawaada barnaamijkeena Ramadan English Series ee wax ka baro academy idin kugu soo gudbinaysay social media sida YouTube-ka, Facebook-ga, meel walba oo aad naga daawanayso khaasatan application-ka wax ka baro academy. Maanta waa maalintii 15aad weeyaan, ilaahay ha naga aqbalo soonkii meel fiican ayuu inoo marayaa. Mar kale Ramadan mubaarak ayaan idin leeyahay. Halfway point, soonku markuu kala barkii gaaro waxyaabaha lagu hadlo ayaan ka hadlaynaa. Reflection and staying motivated, dib u gocasho iyo isdhiirigelinta, hadallada dib u gocashada ama dib u eegista iyo isdhiirigelinta. Soo dhawaada mar kale, waxa weeyaan anigoo ah Ustaad Maxamuud Axmed Xaaji, macalinka soo jeedinaya oo ah maamulaha iyo macalinka wax ka baro academy muddo 15 sano ka badan luqadda Ingiriiska barayay. Haddii aad jeceshahay inaad Ingiriisiga barato, soo dhawow ayaan ku leeyahay insha Allah. Erayga ugu horeeya waxa weeyaan I can't believe we are already halfway through the month of Ramadan. Waxaan aamini la'ahay already inaan kala barkii bisha aan gaarnay. Waxaan aamini la'ahay, I can't believe waan aamini la'ahay weeyaan. Already halfway through. Micnaha waxa weeyaan already half kala barkii ayaan joognaa weeyaan. Halfway through kala barkii ayaan joognaa. Already waxa weeyaan isla xilligaas oo kale oo micnaha waxa weeyaan waxaan aamin la'ahay inaan isla markiiba isla sidaanba aan ku joogno bisha kala barkeedii. Waxaan baranay marka halfway through ayaan baranay dhaxdhaxdii ama kala barkii weeyaan. Already waxa weeyaan mar horeba isla markiiba waan gaarnay weeyaan. Marka isku day inaad isticmaasho qaybta commentiga nagula soo wadaagan doo Ilaahay ka raali noqdo. It's important to stay motivated and not lose focus as the month progresses. Inta badan waxaa dhacda markay bishu kala bar marayso ama Ramadaanku oo meel dhex sii marayo kala dadku inay cibaadada iyo xamaasadda Ramadaanku uu ka yaraado. Markay maalmaha ugu horeeya oo kale masaajidda taraawiixdu aad bay loo buuxaa oo dad fara badan ayaa imaanayo. Maxaa yeelay dadka motivation iyo xamaasad iyo xiiso ayaa wado. Laakiin markay bishii kala bar gaarto xoogaa waxaa arkaysaa masaajidkii taraawiixdii nambarkii imaanaya ayadoo naaqusayo. Waxaa ka lumaya dadki marka motivationkii iyo focuskii iyo xamaasaddii ay lahaayeen ayaa ka lumaya. Marka waxaa lagu leeyahay waa muhiim weeyaan ina motivationkaada xamaasadaadii dhiiranaantii iyo shaqadii salaadii aa waday aadan aysan kaa lumin oo aadsan kaa kala goyn intay bisha socoto. Stay motivated waxa weeyaan sii dhiiranaa weeyaan. Progressna waxa weeyaan intay bisha socoto soo maahan. Marka waxaan baranay stay motivated inaa wixii aad ku sii dhiiranaatid sii dhiiranaaw ama keep your desire to do something wixii inay kugu sii socdaan. Progress waxa weeyaan dib hor u sii socosho weeyaan, hor u sii socosho. Hadda koorsadan oo kale saameynteeda oo kale maalin walba 10 in la duubo oo kale waxa weeyaan waxay u baahan tahay motivation ayay u baahan tahay soo maahan in hore loo socdo u baahan tahay. Waxa motivation maanta ani wado oo i socodsiinaya waxa weeyaan hadallada positive-ka wanaagsan iyo sida aad ula falgalaysaan oo comment-ga ugu soo qoraysaan oo share gareynaysaan oo fiidiyoyada ay casharada looga faa'iideysanayo waxay iga saacidaysaa motivation ayay siinaysaa oo sii soconaya. Haddii laakiin fiidiyowga la daawanaynin cilmiga laga faa'iideysanaynin dee ma la sii wadi karaayo soo maaha ma la sii wada garaayo. Marka qaybta commentiga ku soo qor 2 jumlo 3 jumlo adigoo isticmaalaya. All right, I need to reflect on my goals and see what I can improve in the next 2 weeks. Kala barkii ayaa la joogaa marka waxaan rabaa inaan dib u milicsado hadafkii aan bisha koodeeda dejistay. Haddii ay wax isbedel ama wax horumar aan sameyn karin oo jirane aan horumarkaasi aan sameeyo 2 isbuuc ay soo socoto. Marka waxaan baranay reflect on waxa weeyaan dib u milicsasho weeyaan, dib u eegid ama dib u sameyn ama dib u muraajacin dib u eegid weeyaan guud ahaanteeda. Improve waxa weeyaan horumarin ama wax ka bedelid weeyaan. All right, marka waxaan baranay reflect on dib u eegis ama u kuurgal weeyaan ama dib u fiirin weeyaan. Improve waxa weeyaan hagaajin ama horumarin. Labadaas yar isku day qaybta commentiga inaad ku soo qortid adigoo isticmaalaya jumlo adiga ku gaaraya. Haddii aad application-ka iga daawanayso quiz-ka hoos ayuu ku yaalaa fadlan ka soo shaqay. Haddii aad application ku download garaysnayna waa free weeyaan, Play Store-ka gal soo download garay. Laakiin haddii aad doonayso inaad koorsadayna ku soo biirto free ma ahan ayadu waa $20 laakiin waa
$20 oo wax badan aad ka faa'iidi doonto insha allah. soo dhawaada mar kale u diyaar garooba casharada xigo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.